أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين magacaygu waa Sufyaan Sheekh Ahmed Sheekh Maxamed hogaamiyaha xisbiga talo ku nool xisbiga walaalayaa in wadanka Soomaaliya lagu xukumo dastuurka Islaamka kitaabka jaamaca iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaan walaalaynaa sidoo kaleeto in la badiyo guurka si wadanka Soomaaliyeed uu awood badan u yeesho si diinta Islaamka ay xoogaysato si dhaqaalaha wadanku u koro waxaan kaloo walaalaynaa in wadanka Soomaaliya uusan xilka qabanin qof wata laba baasaboor waxaan walaalaynaa in la tirtiro haybta koorka 4.5 waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed ee Islaamka ahi inaysan kala sarin waxaan sidoo kale walaalaynaa in la bedelo calanka iyo saanta qaranka waxaa ku jira calaamado diineed fara badan waxayna ka taagan yihiin dhaqamo kaleeto waxa inoo keenay dadkii wadankeena ku soo duulay ee Europeanka waxaan rabaa galabtay inaan wax yar ka iraahdo dad badan oo ducaada oo ku jira baraha bulshada ama aan ku jirin baraha bulshada ee runtii diinta Islaamka u ololeeya ama u adeega iyo sida shaqadooda faraha badan ee khayrka badan ay qabtaan ay u fiicnaa lahayd inay dhinac kale u jeediyaan ama ay ka bilaabaan meel kaleeto waxaan ka wadayaa saad ogtihiin ba wadankeena Soomaaliyeed waxa u qoran dastuur diinta Islaamka ka soo horjeeda dastuur gaalnimo waxa lagu xukumaa ama ay qaateen nidaam la yiraahdo dimuqraadiyadda oo diin ka soo horjeeda diinta Islaamka waxay aaminsan yihiin dadka dimuqraadiyiinta ahi ilaah la yiraahdo Palestinians ninkii alifay dimuqraadiyadda ama sameeyay ama dajin sharcigaas 508 sano ka hor intii nabi cusub soo baxay waxaa muhiim ah in shacabka Soomaaliyeed ay fahmaan in wadankeena weerar lagu soo qaado waqti aad u horeeya isla maantana ay nagu socoto dhibaatadii ay dhalisay weerarkaasi sababta keentay in weerarkaasi uusan istaagina ay tahay jahli hareeyay dadka Soomaalida iyo ayagoo ku mashquulay wax aan dani ugu jirinin oo ah qabyaalada waxaan rabaa hadaba dadka ducaada ee diinta Islaamka u walaaleeya inaan la hadlo maanta haddii aad tahay daaci Islaam oo nin raga ama qof dumara walaalkayga Islaamka walaashada Islaamka ah waxaan rabnaa inaan ku fahansiino haddii aan xisbiga talo ku nool in ay fiican tahay ololahaaga inaad ka bilowdid meesha hadda aad ka bilowday meel aan ahayn waxaa laga yaabaa inaad ka hadasho maantay zinada oo kaleeto waxaa laga yaabaa inaad ka hadasho xijaabka in la qaato uu fiican yahay waxaa laga yaabaa inaad ka hadasho abtirsigii rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam iyo wixii la mid ah waa taxanta ajirkeedana waa leedahay laakiin waxaad ogaataa arinta iyada ahi marka adigu aad ka hadlayso dad kaleeto oo adiga ka soo horjeeda oo raba diinta Islaamka inay baabiyaan completely ayaa waxay qabsanayaan shaqadoodii adiguna waxaad u ogolaanaysaa inay shaqadoodii qabsadaan waxaad u ogolaanaysaa inay baabiyaan ama tirtiraan diinta Islaamka haddii taariikhdu wax macna ay leedahay haddii taariikhdu ay tahay wax bulshadu ay ka fiiriso waxyaabaha dhici doona waayo taariikhda marka dib u fiirsid wixii la soo maray haddii aad aqligeeda leedahay waxay ku sheegaysaa waxa dhici doona haddii wadadaas la qaado diinta Islaamka dagaalkii lagu soo qaaday waqti hore waxa uu maanta keenay in dad badan oo Soomaaliyeed aysan diinta Islaamka aaminsan inay Islaam yihiin hase yeeshee aysan Islaam ahayn waxaad arkaysaa dad fara badan oo Soomaaliya fara badan laga yaabo inay yihiin intooda badanba oo aan waxna qorin waxna akhrin marka diinta Islaamka kala hadlaysidna ka aaminsan afka inay yihiin Islaam laakiin hoos aan waxba aysan jirin waa dadka maanta marka aan raahno kitaabka jaamaca ha lagu dhaqmo dastuurka Islaamka ha lagu dhaqmo ku oranaya waxa tahay argagixiso waayo waa wixii dimuqraadiyiintu ay sheegeen waxa qofka awoodda iska leh ama dhihi kara qof ugu yeeraya qof diinta Islaamka ugu yeeraya inuu kuugu yeero ama uu ku yiraahdo waxa tahay argagixiso waxaad fahmi kartaa qofkaasi meesha uu ka taagan yahay diinta Islaamka ama meesha uu ka taagan yahay wax cilmi leeyahay oo qof jaahila oo qof aan lahayn awoodda aqliga uu wax ku fikiro sidaa daraadeed dadka ducaada ee diinta Islaamka dadka ugu yeeray isticmaala baraha bulshada waxaan leenahay ka bilaaba marka ugu horeysa inaad horta dadka u sheegto dastuurkan aan haysano ee maanta inoo qoran iyo nidaamka dimuqraadi la yiraahdo inay yihiin nidaam loogu talagalay dadka Soomaaliyeed Islaamka inuu gaalaysiyo oo sheeg dadka Islaamka waxa ugu muhiimsan ee aan sameyn karno maanta inay tahay in aan qaadano dastuurka Islaamka kitaabka jaamaca sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam
haddii aad ku guulaysato ama aan ku guulaysano in dastuurka islaamka waddankeena lagu xukumo shaqada daacinimo aad qabanaysid 95% waa ku hirgashay waayo nidaamka ayaa kula jira markaas haddii si aad maanta u dhan tiraahdid zinada aad ka hadashid ama xijaabka aad ka hadashid inkastood wanaagsan tahay waxaad lumisay fursad dahabiya waxaanad guusha u ogolaatay al-shaqaaq iyo dadka dimuqraadiyiinta gaaladii waddankeena soo weerartay waxaa laga yaabaa weli inaadan fahmin aan kuu fasira marka aan kuu soo dhaweeyo marka aad ka hadlayso xijaabku inuu fiican yahay waa saxan tahay laakiin waddankii Soomaaliya baarlamaankii ayaa lagala dagaalamaya xijaabkii marka aad ka hadlayso zinadu inay xun tahay waa fiican tahay walaal laakiin baarlamaankii ayaa lagu dhiirigelinayaa in zinadii fiican tahay sidee loogu dhiirigeliyaa marka i weydii su'aashaas haddii la keenay dimuqraadiyadda wax la yiraahdo oo la yiraahdo qof walba waa xor ilaan dimuqraadiyadda macnaheedu waxa weeyaan qofku wuxuu xor u yahay ficilkiisa iyo wuxuu rabo inuu sameeyo sida hore u aragteenba oo la keenay baarlamaanka ayadoo la fasirayo ayaa waxaa la yiri galmadu waa xalaal qofba qofku rabo u galmoon kara in xijaabka lagala dagaalamayo waxa ku cadeynaya gabdhaha ku jira baarlamaanka fiiri mid wala bisan sida gabdhaha Soomaalida ay kuma jirto kulligood qoortooda banaan kulligood waxay u labistaan qaab ka duwan qaabka gabdhaha Soomaalida ay u labistaan maxaa keenay macnaheedu taas waxa weeyaan waxa la dagaalamayaa xijaabkii waxa la dagaalamayaa diinta islaamka waxa la dagaalamayaa in xalaal isku guursado waxa la dagaalamayaa guurki adigu marka haddii aad halkan joogto ee aad bulshadii ku waaninayso maanta oo dhan daaciya tahay bulshadii ku waaninayso in zinadii ay xaaraan tahay in xijaabka la qaato inay fiican tahay in ribada la iska daayo baarlamaankii awoodda waddanka lagu xukumayana uu adiga ka soo horjeedo in laga guulaysanayo shaki kuma jiro laga yaabo inay qaadato 50 sano 20 sano 30 sano iyo wixii la mid ah laakiin ugu dambeynta guusha asaga iska sababtuna waxay tahay nidaamkii waddanka ama awooddii waddanka qofka gacanta ku haya ayaa guusha ugu dambaysa iska dimuqraadiyiintu waxay ku guulaysan saad ogtihiinba in la kala saaro diinta iyo dowladnimada in la kala saaro ku sheegi maayaan laakiin waa ku guulaysteen waxaad arkaysaa dad badan oo sheeganaya inay ehlu diin yihiin oo dhahaya diinta islaamka looma soo dejin in la isku xukumo kuwaasi waa gaal waxaan ka rabaa marka walaalkayga daaciga walaashada daaciga ahay waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay in aad ka fakarto wax weeyaan sidee baan ku gaarnaa in lagu xukumo waddankeena Soomaaliya dastuurka islaamka kitaabka jaamaca sunnada rasuulka goolkaaga ugu horeeya hadafkaaga ugu horeeya ha noqdo midkaas nacam ma ku oranayo daa wixii kale oo sameynaysa iyo khayrkii kaleeto oo sida midna xijaabka inaad amaanto oo kaleeto zinada inaad sheegto inay fuxshi tahay iyo wax fool xun iyo wixii la mid ah dhammaan diinteena islaamka ku saabsan laakiin weliga markasta goolkaagu ha ahaado in aad ku tartamisiiso inaad u sheegto shacabka Soomaaliyeed xalka waddanka Soomaaliya waddankeena Soomaaliya inuu yahay dastuurka islaamka inaan qaado kitaabka jaamaca sunnada rasuulka inaad ka dhaariciso shacabka Soomaaliyeed in al-hukmu illa lillah inaad u sheegto wama lam yahkum bima anzala Allah ila aakhir al-aaya inaad u sheegto qofka diidan in kitaabka Allah la isku xukumo inuu yahay gaal haka gambani hana ka cabsan waayo haddaan saas samaynin waxay ku guulaysanayaan in sida ay hadda ku wadaan sheekadu ay ahaato in la kala saaro diinta iyo dowladnimada in la kala bixiyo in loo sheego shacabka Soomaaliyeed oo juhalada intooda badan inay tahay dimuqraadiyadu dowladnimo iyo kala dambeyn dhowr mar ayaan waxaan idin sheegay dimuqraadiyadu inay tahay diin kaleeto maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago tusaale runtii aad wada ogtihiin oo muxuu yahay saad aragteen baa dhawaan dagaalada ka socda Russia iyo Ukraine waxaad aragteen dad isqoraya oo raba inay difaacaan Ukraine difaacaan dadkaasi dhammaantood waa cadaan waxay ayagu ugu yeeraan blue eyes and blonde hair dadka indhaha buluuga leh timahooduna ay yihiin timaha casuurka why dadkaasi ay u difaacayaan Ukraine waa loo waayo qof Asian ama Arab oo gaal ah oo dimuqraadiyada aaminsan ama madow oo dimuqraadiyada aaminsan because waxaan rabaa inaad fahamtaan dimuqraadiyadu waa diin aaminsan kala sareynta dadka
adiga oo kaleeto oo islaama oo Soomaaliya waxay ku aragtaa in lagu sameeyay inaad servant ama adoon aad u ahaatid ninka cadaanka inuu ka sareeyo sidaasi waa sida dimuqraadiyadda qabto ma sheegaan laakiin that is exactly what they believe waxaana cadayno taariikhda maanta aan naqaano waa مثلا South Africa oo kaleeto apartheidka dadka gumaysanayay ama wadanka ku soo duulay waxay aaminsanayeen inay ka sareeyaan waxay aaminsanayeen in loo qoray ayagu inay dadkaas xukumaan Maraykanku marka uu la wareegayo New Mexico gobolada badan ee Mexico xiga New Mexico California Florida iyo gobolada lamida waxay isticmaalayeen wax la yiraahdo manifest destiny ilaahay uu sheegay ayagu inay la wareegaan inay ka sareeyaan dadkaas marka ay xasuuqayeen dadka indigenouska ama Hindiyanka meesha ay ugu tageen ilaa meesha dad degan oo ay ku sumeynayeen cudurrada iyo dilka labadaba waxay aaminsanayeen inay ka sareeyaan ilaa maanta waxay aaminsanayeen inay ka sareeyaan waxaad aragteen dad badan marar badan niman wariyaala oo sameynaya ama isbarbar dhigaya Iraq Soomaaliya iyo Afghanistan oo dhinaca iyo Ukraine oo dhinaca oo oranaya dadkaas la mid ma dadkaas waa blue eyes blonde hair uma qalmaan in la dilo uma qalmaan dagaalka noocaas inay kala dimuqraadiyadu waa midaas waa diin ay iska leeyihiin dad gooniya waa diin loogu talagalay in dadku ay kala sareeyaan waana midda maanta Soomaaliya dhexdeeda annagana haysata oo keentay inaan kala sareeyo waayo Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa kuma taalo dadku inuu kala sareeyo Allah subhanahu wa ta'ala diinta wuxuu u soo dejiyay dadku inay isku mid yihiin kaliya in lagu kala garanayo ama ay ku kala fiican yihiin bitaqwa Allah kama qala Allah azza wa jalla siduu ilaahay uu noo sheegay kitaabkiisa noogu sheegay oo uu yiri inna akramakum inda Allahi atqakum marka waxaan idinka rabaa waxaan idinku boorinayaa inaanaan iloobin marka ugu horeysa inaad isticmaashaan baraha bulshada u isticmaashaan dadkiina ducaada ee baraha bulshada ku jiraahay inaad ku boorisaan shacabka Soomaaliyeed inaad tustaan shacabka Soomaaliyeed dastuurka islaamku inuu yahay xaq xal u yahay wadankaana meel kale oo dhibaatada uga bixi karnaa inaysan jirin inaba la ekaatay arrintaas marka aad samaysaan waxaan ku guuleysanaynaa haddii la yiraahdo in wadankeena Soomaaliya lagu xukumo dastuurka islaamka kitaabka Jaamacadda Sunnada Rasuulka shaqada daacinimo ee aad u taagan tahana Allah khayr ka siiye 95% waa ku qabsoomaysa haddii laakiin aad u dayso gaalada iyo al-shiqaaq iyo dimuqraadiyiintu in ay u sheegaan dadka waxay rabaan inay ka dhaadhiciyaan dimuqraadiyadu inay tahay kala dambeyn iyo dastuur iyo dawladnimo in dastuur lagu qoro ka soo horjeeda kitaabka diinteena islaamka completely opposite kuwa adiguna aad halkan la taagan tahay xijaabka hal la qaato saan hal la sameeyo khayraad ka helaysaa hase yeeshee waa laga guuleysan si marka aan lagaaga guuleysan si adigu guusha aad u yeelatid ka bilow halkaas wala ama walaashay waxaan idinku marti qaadaynaa xisbiga tala ku nool inaad nagu soo biirtaan inaad ololaha nala gashaan waxaana xisbi u taagan inaan u ololayno in wadankeena Soomaaliya lagu xukumo dastuurka islaamka kitaabka Jaamacadda Sunnada Rasuulka haddii haddaba aad tahay qof daaciya oo laga yaabay waxyaabo kale inay xiraan sida مثلا qabyaaladii wali inay kugu dambayso oo aad istiraahdo ninkan haddii aad tala ku nool gasho waxaad caawinaysaa Sufyaan Sheekh Axmed Taakeeye haddii ay saas nidaam ku soo dhacdo wali wada kala ku furan wadada ku furan waxay tahay istaag kaliga qofna ha garab istaagin laakiin kaliga istaag wali waxaan rabaa inaad u ololeyso wadankeena lagu dhaqo dastuurka islaamka kitaabka Jaamacadda Sunnada Rasuulka waa haddii aad u aragto naftaadu ay ku tusto inay ceeb tahay ama qalad ay tahay oo xaasidnimadii ay kugu jirtaa inay qalad tahay inaad qof kale garab istaagto waad ka cabsanayso bulshada adigu waad ka dhalatay iyo dadku inay ku yiraahdaan ninkaasi waa ree hebele maxaad u garab taagantahay iyo wixii la mid ah way dhibaatadaasi waa in haystaa haddaad ogtihiin haddii aadan awoodeeda lahayn laakiin niyadda ka jeceshahay in wadanka Soomaaliya lagu xukumo dastuurka islaamka isticmaal calaamadda tala ku nool saaro baraha bulshada profile-kaaga meel kasta waa calaamad tusinaysa shacabka Soomaaliyeed ama u sheegaysa shacabka Soomaaliyeed in ay dadka Soomaaliyeed rabaan in lagu maamulo wadankeena dastuurka islaamka kitaabka Jaamacadda Sunnada Rasuulka qofka calaamadaas u saaran tahay calanka tala ku nool micnaheedu waxa uu yahay waa qof raba diyaar u ah taageersan
in waddanka Soomaaliya lagu maamulo dastuurka islaamka kitaabka jaamacada sunnada rasuulka waana wax ugu yarood qaba karti xaqiiqdu waxay tahay walaalkayga islaamka walaashayda islaamka ahay inaad ku baraarugto in guusha nala ka wato waqtigan xaadirka haddii aanan baraarugin haddii aanan waddankeena dib soo ceshana inay sidaa ku dhammaan doonto wadamo badan maantay oo islaam ahaa ayaa diintii laga dhex saaray masaajida la xirxiraya dadka culimadii la dilaya iyo waxyaabo la socdo waxaan idinkaga tegayaa marka annagu haddaan xisbiga tala ku noolnahay waxaan u taaganahay in aan u ololayno in waddankeena Soomaaliya lagu xukumo dastuurka islaamka kitaabka jaamacada sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaan ka codsanaynaa dhammaanba dadka ducaada ee Soomaaliya inay garab istaagaan waxaan ka codsanaynaa inay ka bilaabaan ololahooda in waddanka Soomaaliya lagu xukumo dastuurka islaamka marka aad soo istaagto oo aad dad wax u sheegaysa ama wacdinaysid ka bilow waxa xalka uu ku jiro inay tahay dastuurka islaamka in waddanka lagu xukumo kitaabka jaamacada sunnada rasuulka la isku xukumo oo sheeg dadka dimuqraadiyadu inay tahay diin kale oo ka soo jeeda diinta islaamka oo sheeg dastuurka qorani inuu yahay gaalnimo inuu yahay ha ka xishoonin hana ka cabsanin ilaahay ayaa ka abaalmarinay waddankaaguna uu kugu badbaadaya taageer xisbiga tala ku nool calaamadda xisbiga tala ku nool waxay astaan u tahay ololaha dastuurka islaamka in lagu dhaqo waddankeena Soomaaliya dhammaantiin waa mahadsantihiin waa idin jecelnahay waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo wadajir inaan ugu guuleysano khaasatan dadka ducaada oo gabdho iyo rag bale inaan ku guuleysano in aan waddankeena Soomaaliyeed ka difaacno gaalada inaan ku guuleysano in dastuurka islaamka lagu xukumo inaan ku guuleysano in dastuurka islaamku uu yahay xaq xalna uu yahay waa mahadsantihiin dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh